kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification-kana furo siday kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. السلام عليكم. 10 كلمات waxaa ku saabsan English for you bugeynayaan waa presents marka wada sheekaysi ku saabsan presents waa hadiyadaha waa anigoo ah Khalid Cabdi halkani waa Somali Online Nasr 10 koo dhameystiran haddaba ma u baahnayd barashada luqadda Ingiriisiga ma heli weyday chance aad ku tagto school ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran. presents waa hadiyadaha what kind iyo biba wada hadlay marka wuxuu what kind of present hadiyad noocee ah baa is popular caanka ah in your country wadankaaga. What kind of present hadiyad noocee ah baa is popular caanka ah in your country wadankaaga. What kind of present hadiyad noocee ah baa is popular in your country wadankaaga ka caana. B ayaa jawaab marka wuxuu depends on waxay ku xiran tahay hadiyaduhu. It depends on hadiyaduhu waxay ku xiran yihiin. It depends on the receivers waxay ku xiran yihiin hadiyaduhu dadka helaya hadiyada. For children caruurta waxa weeyaan hadiyadaha waxay helayaan ama hadiyadahoogu toys waa caruusado. For children toys caruurta waa caruusado and for couple lamaanahan is flower waa ubax ama is flowers waa ubaxyo baad odhan kartaa. For children caruurta toys waa caruusado ama toys waa caruusado and for couple is flower lamaanahan waa ubax. What kind of present is popular in your country? It depends on the receivers. For children, toys, and for couple is flower. Su'aal kale markaa weydiiyo what was your last present? Maxay ahayd hadiyadaadii kugu dambeysay? Maxay ahayd your last present? Hadiyadaadii kugu dambeysay. Maxay ahayd your last present? Hadiyadaadii aad heshay ee kugu dambeysay maxay ahayd? B ayaa su'aalka uga jawaabay markaa wuxuu waxay ahayd a handmade doll. hadiyad gacan lagu caruusad gacan lagu sameeyay ama caruusad gacanta lagu sameeyay. Waxay ahayd handmade doll caruusad gacanta lagu sameeyay given by waxay siiyay my best friend saaxiibkayga ka ugu fiican ama asxaabteeda ka ugu fiican bay siiyay ama kaan ugu jecelahay. It was a handmade doll given by my best friend. Su'aal kale markaa weydiiyo wuxuu what is your favorite present? Waa maxay hadiyad ka heshaa? What is your favorite present? Waa maxay hadiyad ka hesho? Ayuu markaa wuxuu ku jawaabay I love desserts a lot. Waxaan jecelahay macmacaanka in fara badan. Did you ever get a present you didn't like? Did you ever get weligaa ma heshay a present hadiyad you didn't like aan jeclaan? Weligaa hadiyad aan jeclaan ma heshay? Yes of course ha dabcan. Yes of course we ha dabcan. Halkaas uu jecel arday baan ahayo oo waxii wadankan ahayo